kulanti wacan wanaagsan daawadayaal markasta naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijyada ka baxa telefishinka SBTV isbuucan waxayna si gaar ah aan u eegi doonaa hadii Allah idmo xaaladihii ugu dambeeyay fatahaadii roobkii mihigaanka ahaa ee ku dhuftay guud ahaan dalka Kenya gaar ahaan waxayna si gaar ah u eegi doonaa xaaladda uu ka sugan yahay gobolka waqooyi bari dalka Kenya ee gaar ahaan magaalada Garissa oo masiibooyin isxigxiga ka dhaceen sidoo kale waxa la soo sheegayaa in qaybo kamid ah magaalada Garissa ay markaasi fatahaado ay ku dhufteen walow dadka qaarkiina ay markaasi u barakaceen goobaha markaasi taaga inkastoo wali wadada si fiican aysan u furmin haddana waxa jira masiibooyin isxigxiga guud ahaan dalka Kenya waxa markaasi daadadkani ku nafwaayeen in ka badan 200 oo qof markaasi isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshooyinka ku nool dalkani Kenya arrimahaas ayaan ku eegi doonaa hadii Allah idmo barnaamijkeena maanta waxa markaasi waraysi aan la yeelan doonaa hadii Allah mid kamid ah suxufiyiinta ka howlgala idaacadaha maxalliga ee ku yaala magaalada Garissa ee gobolka waqooyi bari dalkani Kenya zuweeda ku soo dhawow SBTV bal waxaad warbixin naga siisaa xaaladihii ugu dambeeyay ee magaalada Garissa goor markaasi halkaasi aan indhayn u tagnay oo maalimahan dambe dhamaan aan wada joognay fatahaadaha aad iyo aad bay u soo badanayaan dad qaar baa dhibaatooyin fara badan ku soo gaaray fatahaadahani waa fatahaado masiibooyinkooda wata sida markaasi dad fara badan baa ku dhintay meesha loo yaqaan Konapunda ama xaafadda Madogo waxaa arkaysaa fatahaadaha sida xaafadooyin badan ay soo qaxeen xaafadda Sheekh ay kamid tahay xaafadda Kamor ADC iyo Bulakunda oo markaasi iskugu yimaanaya iskuulaha markaasi dawladda ay leeyihiin iskuulka Jarib primary school iyo Kazuko iyo Yuga ayaa markaasi dadweynaha iskugu tagayaan sida markaasi dawladda ayadana ay shaacinayso ay dhayso iskuulaadkii ya markaasi dib loo furiyaa dadweynihii cabashooyin badan bay halkaasi ka muujinayaan sida markaasi cabashooyinka ay tahay iskuulihii hadii dib loo furo xaafadaheena biyaha ay la yaalaan halkeeba markaasi aan ku laabanaynaa waana markaasi su'aal in la isweydiiyo ay mudan tahay dawladdii hadii ay dhaahdo taariikhda marka ku beegan tahay taariikh 6 Monday amaba Isniinta sidii loo yaqaan iskuulada dib loo furiya hal shakhsi yaana ku arkin iskuulkaasi dawladda markaasi ayada ay shaacinayso dadweynihii aad iyo aad bay u cabanayaan waa run in la isweydiiyo way ku jirtaa hadii dadweynihii xaafadahoodii biyo ay la yaalaan iskuulkana ka qaxala dhoo halkeeba la aadaya su'aasha markaasi dadweynaha ayaga ugu badan ay isweydiinayaan biyahani waa biyo markaasi qarsaaran nafeed iyo maal intaba geysteen dad baa maal ku waayeen dad baa naf ku waayeen dad waxa jiro cuuriyaana dad waxa jiro indha qabin lagu qabin biyihini guriyihii ku soo galeen iskuulkii ugu dhawaa ay ku soo carareenna waxa la leeyahay iskuulkina ay gaaga baxdaan baan doonaynaa waa su'aasha markaas dadweynaha ayaga isweydiinayaan maadaama su'aalahaasi la isweydiinaya Garissa hadda fatahaada wabiga wali ma socotaa mise wabiga kastoo yar dabcay aad iyo aad bay u socdaan xalay xitaa biyihii meesha joogaan saakadan ma joogaan iskuulka Kazuku way ku soo dhufteen basaaka dadkii Kazuku joogeen yaa maanta inay sii guuraan amaba sii qaxaan ya markaasi ku tala jiraan biyahani waa biyo markaasi aad iyo aad u badan waa biyo aanan la yareysan karin marka dawladda tilaabo noocay ayay qaaday maadaama magaalada Garissa ay tahay hooyada gobolka waqooyi bari dawladda iyo maamul goboleedka Garissa tilaabo noocay u qaaday talaabo waxay qaadeen dadweynaha horta waa in markaasi ayaga gurmad loo fadiyaa dadkii ayagu waxay leeyihiin wax gurmadaana soo gaaray malahan wax anaga noo imaanaya malahan dadkii cabashooyin bay muujinayaan magaalada Garissa dad baa madax ka ah dad baa la doortay wax markaasi u imaanaya ama weydiinaya ma jiraan sida markaasi ayaga dadweynaha ayagana ay sheegayaan ilaa iyo isbuucan dhan dadkii waan dhex qaadayay cid markaasi gurmad sheeganaysa ma jira haddii intaasan kaga gubno waxaan si toos ah u tagaynaa Konapunda meesha la yiraahdo oo doonta ay ku qalibmintay bal dadka sharaxaad ka si doontaasi inta qof oo saarneed hadii markaasi tiradeeda aad markaasi noo hubin kartid iyo waliba qasaarihii meeshaas ka dhacay qasaarihii Konapunda horta doon ya markaasi dadweynaha lagu qaadiyay ayagoo dadkaasi doonta soo qaadaysa waa dad inta badan caruur iskuuley ah maadaama dawladda shaacisay in iskuulaha dib loo furo ardaydii waxay ku maqnaayeen holiday ama fasax magaalada dhankaas iyo ismaamulka Nairobi
ayagoo leeyihiin dee kaa maanta magaalada Gaarisa maadaama iskuulka dib loo furay dawladda ay shaacinayso in iskuulka la furay inay magaaladooda kusoo noqdaan iskuulkooda sii akhristaan markii ay soo raaceen doontii dad badan baa aan iraahday ku naf waayay inta badan tiradoodii dad waa isku dhex wadaan laakiin si xaqiiq ah uma hayo doontii waxay soo qaaday 53 qof halka markaasi la doonayo doontaasi inay qaado 16 qof waa tahay marka tirada hadda maqan waa imisa oo hadda la leeyahay ruux iyo rag meesha markaasi jaana cirib dhigan lama hayo hadii karo dad baa shalay la shaacinayay oo la helay 4 qof oo 2 qof oo subaxii iyo 2 qof oo galabtii la helay maadaama dadka ay maqan yihiin si dhab ah loo xaqiiqsan karin sababtoo ah halkaasi dad badan baa ku naf waayeen dadkii laga dhintayna meesha ma ka imaadaan dawladda waxay sameynaysaa in tiya gaas ay halkaasi ku daadiso dadweynihii ay naftooda ula cabsanayaan waxay leeyihiin dadkan meedadkan igala soo bixiyo waa inay guryihiina ku noqotaan dadkii iyaawa meedadka laga soo bixin karin oo dadkii baa meesha soo tirib buux dhaafiyay ilaa iyo magaalada Gaarisa meesha loo yaqaan Tana Garden iyo dadka aad iyo aad u badnaayeen Tana Garden ilaa iyo bridge-kana waxay isku jiraan cabaar intaas oo kiiloomitir ay isku jiraan markaasi dawladana tiya gaas iyo ul ay garaac bay iskugu dartay dadweynaha halkaasi laga ceyrinaya waa tahay waxaa jira mid kamid ah aabiyaasha magaalada Gaarisa oo ilmaha ugu geeriyoodeen doontii qalibmatay inkastoo la xaqiijin karin inay dhinteen inay kalato oo baraha bulshada ka soo muuqday oo leeyahay gabdhahayga rag iyo ruux meesha markaasi jaana cirib dhigan lama sheegi karo inaan meesha tagan waa la ii diiday arrimahaasi maxaad kala socotaa aabahaasi Soomaaliyeed 2 gabdhood uu laasan yahay sida markaasi asagana aan ka arkay shaashada oo uu leeyahay 2 gabdhood naf iyo geeriba midnaba kuma hayo hadii aan naf ku heli lahaa xitaa waa ii fiicnaan lahayd dadkii aan waxaas dhihi lahaa dadkii yaaba laga soo bixin karin meedadka oo dadkii meesha soo tiri buux dhaafay wabiga saxariid baa loo batay marka ilaa iyo hadeer ma xaqiijin kari in gabdhihiisa helay iyo in uu yaamaba intuu la yahay shalay masiibo kale ayaa Gaarisa ka dhacday inta u dhaxaysa Gaarisa iyo Nairobi inkastoo wadadii tooska ahayd Nairobi iyo Gaarisa aysan ahayn shilkaasi shalay dhacay halka uu ka dhacay iqaabka u dhacay bal dad faafayna qasiisi waarun shil gabdho markaasi baraha bulshada caan ka ah sida loo yaqaanaba gabadha Hodan Gaabo yaa markaasi ka mid ahayd qofkii markaasi ku geeriyooday amaba ku naf waayay shilkaasi waxay u soo socotay casuumaad amaba aroos magaalada Gaarisa loogu fidiyay ayadoo bridge rabtinay soo goyso waxay aragtay markaasi in dad badan ay halkaasi ku naf waayeen waxay dhaaday waa wareeganaya sida Gaarisa aan markaasi aan casuumaadaasi amaba arooskaasi aan ugu qayb galo gabadhii gaariga yaa shil galay gabadhii ayada ahaydna way ku nafwaysay gabar kale oo ayadana la socotay gacan bay ka go'day mid kalena ilaa iyo hadda foomba ama markaasi istaal bay jiiftaa oo xaaladeeda caafimaad yaa markaasi lala tacaalaya meeshan la leeyahay Konabunda markeedii hore markii biyo ay yimaadaan dhibaatooyinkan ma ka dhici jireen mise waa wax u horeyso Konabunda horaan dhibaatadan camal wiligeed kama aysan dhicin waa markii ugu horeysay ee markaasi fatahaadahani ay jabsadaan halkaasi hay marka dawladda meeshaasi waxaan filayaa in laami ay tahay oo wadada isku xirta Gaarisa iyo Nairobi sanadkii hore oo bishii November ayaa markaasi markii ugu horeysay go'day sanadkan dadkan ayaa ku dhamaaday dawladda marka wax qorshe ay soo saartay ma jirto oo lagu xalin karo in saameyntan oo kale mar dambe ay soo laabanin run ahaantii maadaama hadda ay tahay Konabunda sida dadka markaasi ay sheegayaan markii ugu horeysay ee fatahaadahani noocan oo kale ay jabsadeen wax dawlad oo war ah oo markaasi ka soo saaray ma arkin in ay markaasi halkaasi ay shaqooyin badan ka qaban doonaan balse waan rajaynaynaa in markaasi halkaasi ay si toos u dhisi doonaan sababtoo ah waa laga maarmaan waa magaalada Nairobi iyo Gaarisa inta isku xiriirisa min laga ahaan kara ma ahan waxaan markaasi fili doonaa ama rajayn doonaa in wadadaasi ay xiri doonaan balse dawladda wax war ah oo markaasi ay soo saartay oo ay dhigi karta halkaasi yaan markaasi hagaajinaynaa ma arkin sababtoo ay u dhigi karin waxa weeye dadkii yaaba qaar la laayahay marka dadkii dhammaan la wada helo yaa markaasi la dhihi karaa dadkii meedadka habeenkii la hadii ay soo bixiyaan dadka taas waxaa loo geynayaa isbitaalka loo yaqaano General Hospital yaa dadka markaasi meedadka u doonanayaan dadkii meedadka ka maqnaa amaba dadkoodii ayay ka maqnaa General Hospital ay direct u tagayaan si markaasi dadkoodii ay halkaasi ugu soo qaataan balse wax war ah oo dawladda ay soo saartay aniga ahaan wali ma arkin maadaama hadda Gaarisa biyo ay ku socdaan bulshada qaybaheeda kala duwan markii laga soo tago inay iskuulaadka ay degaan
wax gurmad ah oo markaas la xiriira dhanka dawladda ha noqdaan hay'adaha samafalka ee Gaarisa ka howlgala ha noqdaan ma jiraan oo gurmad ay helayaan maadaama aynu ognahay fatahaad ay ka dhacdo ay ka dhalan karto cudurro kala duwan lagu qaadi karo. Tahay waa mahadsan tahay su'aashaasi haddii aan kaaga jawaabo dadweynaha ku sugan iskuulaadka ku soo carareen fatahaadaha wax gurmad ah weli ma aysan helin balse way ku rajo weyn yihiin maadaama shalay ilaa iyo daraad ay markaasi soo booqanayeen Kenya Red Cross oo markaasi yimaanayeen iskuulaha balse wax gurmad ah oo weli soo gaaray ma laha laakiin dadweynihii qoraalay ay ka qaateen si markaasi ayaga dib ula soo xiriiraan oo ay dhahaan de gurmadkiina waa diyaar balse hadda wax weli ay heleen ma lahan dhanka caafimaadka daawooyinka shundurwada wax markaasi dadweynaha u qaybiyay hal qof xitaa ma jira laakiin Kenya Red Cross ayaa laga sugaya in markaasi maadaama ayaga magacyada tirada ee markaasi iskuulaad ku soo cararay ay qoranayaan ayaga laga bar sugaya in markaasi laga helo gurmadka laakiin ilaa iyo hadeer wax gurmad ah oo dhaqdhaqaaqa sameynaya ma aanan arkin. waa tahay aad mahadsan tahay taasi waxay ahayd Zuweyda Saadax Janna Gale oo markaasi ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala idaacadaha ku yaala magaalada Gaarisa warbixin naga siinaysay fatahaadihii iyo waliba iyo dhibaatooyinkii isxigay ee ka dhacay magaalada Gaarisa ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya ugu dambeysay shirkii shalay ay ku dhimatay gabadha lagu magacaabo Hodan Gaabo oo baraha bulshada caanka ku ahayd Allah naxariistay gabar kale ayadana la socotay iyo darawalkii gaariga saarnaaba ay ku nafay inkastoo gabadha kaleeto ay gacanta ka go'day leeyahay haatan isbitaal ay jiifto arrimahan ayaa waxa markaasi roobabka mihigaanka ayaa waxa markaasi saameyn ku yeeshay guud ahaan dalka Kenya si gaar ah gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya khaasatan Gaarisa ay markaas masiibada ugu badan ay ka dhacday inkastoo haddana gudaha dalka Kenya la sheegayo in meelo kala duwan ay daadadkani saameeyeen inkastoo gobolka aan yiraahdo geeska Afrika markii la fiiriyana roobabkan ay saameyn badan ku yeesheen wadamada Kenya iyo Tanzania sidoo kale wararka naga soo gaaraya magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan waxa la sheegay in markaas wabigii Shabeelle karkaarada uu jabsaday xalay qaybo kamid ah magaalada Beledweyne uu ka futahay wabigaasi ayadoona markaasi saameyn kala duwan markaasi ay ka dhaxli karaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Beledweyne magaalooyinkan labada magaalo inkastoo haddana la sheegayo daadadkan in ay soo kordhi karaan in wabiga karkaaraha uu jabsado wax markaasi keenay in roobab mihigaana oo saacadihii la soo dhaafay ay ka da'ayeen qaybaha kala duwan ee gobolka Shabeellaha Hoose Shabeellaha Dhexe iyo waliba gobolka Hiiraan taana ay keentay in wabiga Shabeelle uu jabsado karkaaraha marka fatahaadaha way ay badan yihiin daawada hadad joogtid goobaha wabiyaasha ay ku dhow yihiin iskaga fogow si markaas noloshaada kugu badbaado intaasaynu ku soo afbeerina barnaamijkeena maanta kaga hadlaynay arrimaha marka fatahaadaha ku dhuftay gobolka Geeska Afrika si gaar ah waxa markaasi aan kaga hadlaynay magaalada Gaarisa barnaamijkana waxa markaasi aad kala socoteen telefishinka SBTV inta midkiisa xigan kulmadan waxa idin kaga tageynaa sida iyo amaanaal